الله maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay ninkii luqadda Soomaaliga mataqaanaa dhahay caruurteeda inay Soomaali ku hadlaan maro hatta Soomaaliga faa'iido ma laha asagoo Soomaali ah soo marka videogan ma aha kuma saabsano inaan ninkaas necbahay ama caynay ama wax ka sheegayo laakiin haddii Soomaali ama 15 milyan oo luqad ay ku hadlaan aad dhahayd waa luqad xun ama luqad saas adoo luqadaas ka soo jeeda macnaheedu waxay tahay inaa micnihii wax uqdada kugu jirto ama dadkaas xumaan aa u qabtid so wadadii uu sidaa ku dhahay wadada naftirkeeda ayaa kula dhiil garaynaynaa video wuxuu dhahay la daawada Sooxili ayuu ku hadlayaa intiina Sooxiliga aqoonin anaan is turjumin doona insha Allah sorry so yeah video waa kan dalsoor ayaa soo dhigay dal walba galeen qof walba kan ma aha ninka ku xigo soo unajua mimi sitaka da ujuana mtoto wangu sitaka kujuana kwa Kisomali kwa sababu sasa hivi Kisomali kooda horta ninka naftirkiisa Sooxiliga si fiican uma yaqaano sa arkaysaan dadka Kenya ka imaada ama Kenya joogi jiray Sooxiliga ma yaqaano wuxuu dhahay sitaki kujuana watoto wangu Kisomali so sitaki kujuana ma sitaki wajue hadda qof Sooxili yaqaanaya sitaki kujuana ma dhiilaan so pointiga la wada gudubna asaas Sooxili aqoonin laakiin Sooxili ayuu iska dhigaya uu ku faanaya nini haina faida yote. Ndio maana sasa mimi maisha yangu maisha ya mtoto wangu sitakumuliza hapa. Sa arkaysa uu gagafaya Sooxiliga yani mimi hata pia familia yangu sitakwenda kule Somalia. wuxuu dhahay hatta familkayga ma rabo inay Soomaali tagaan so uu sii wadaa weli saafilaya dadka Soomaaliya okay intaas ku egyahay soo muusi hadlin wuxuu dhahay maxaa la dhahaa familkayga ma rabo inay Soomaali ku hadlaan caruurteyda ma rabo inay Soomaali ku hadlaan hatta ma rabo caruurteyda inay xagga tagaan so sa arkaysaa asoo Sooxili ku adag yahay midda labaad wuu ka faanaya so ma aha wax cusub Kenya markaa joogi jiray wax ugu badan arki jiray waxa ahayn dadka Soomaalida oo isku khasbaya dadka Kenyaanka inay Kenyaati iska dhigan rabaan ayagu xataa wadankii waxir joogay midda labaad dadka maxaa la North Eastern Kenya ka imaada nacab uma qabo North Eastern Kenya dad Soomaali badan ayaa ku nool Soomaali ayaa degan laakiin dadka mid ah ma dhahay kulligood dadka mid ayaa waxa arkay Kenya markaa joogay dhahaya Soomaali ma nihiin anaga Kenyan aan nahay at the same time ayaga Soomaali Kenyaanka iyo Soomaalida Kenyaanka macni iskuma daran Soomaalidaas kale Soomaali un bay u haastaan ma kala yaqaanaan qofkii Soomaali xamar hadda ka imaada iyo North Eastern ka imaada so waxay isku qasbaan inay Kenyan yihiin dadka badankood hadda North Eastern Kenya ka imaaday kulli ma dhahay aniga dad badan aqaan asxaab badan aqaan meesha ka imaaday oo wanaagsan laakiin dad waxaa jira isku qasba oo minim Kenya ku hayaan laakiin Kenyan ah aniga ku dhahaya Soomaalinimada ka faanaya adeeg ku taala noloshaada iskale waxa isku faan laakiin hadda disrespect ku sameeysid xishmad macni xishmad waa dadkaas waa lagu dhiil gareynayaa sababtoo ah noloshaada iskale waxa sameeyaa lagu dhahay laakiin ma aha inaad dad kale xishmad daro ku sameeysid so Europe na ku aragnay dad maxaa la dhahaa ka faanay Soomaalinimada Soomaali ma nihin oo balay ku dhahay adeeg ku taala waxa rabto ku faan laakiin adeeg kugu ekaato dadka kale xishmad garay dad kale ani Sweden ku noolahay la ma aha inaad dhaho dadka Swedish xishmad darada ku sameey xaq ma leh qof kale wadan kale u dhashay xishmad daro ku sameey xaq ma soo marka waxa ku leeyahay waxa rabto ku faan American aha Soomaali American Soomaali Jamaica hadaarto aha laakiin at least dadka wadan ku nool ama dadka aan nooshahay xishmad u hay so video yar ku saabsan ayuu ahaa ninka maxaa la dhahay mistaki oo totaan wajuanik Soomaali horta koodra naftirka Sooxili soo baro adiga naftirka class ku laawo Sooxiliga ku faanaysid soo baro sababtoo ah soo jeedo ma taqaan Sooxiligu ku adag yahay waa jijibinaysa so dadka iska lahaad ku arkaan ay ku leeyihiin orod luqad soo baro Kenyan markaas aan aqoonaysan so video inta soo ku egyahay ha u qaadanina inaan ninkaas necbahay ama xumaan u qabo laakiin pointigiis ayaa proof gareynaya inuu khalad sameeynaya tusinaya maybe waxa laga yaabaa inuu arko videogan maybe dad yaqaan arkaan ay tusiyana laga yaabaa so marka hada video aragtid please share gare dalsoor naftirkooda share gare si u arkaan dadkii macnihii luqadda ka faanayana
si micnihii ay u dhiirigeliso channelka haddaa ku cusubtaa waxaa sameeya taqaana subscribe like asxaabta gaars peace out